kulankan ballaaran ee wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo shahaad sharaf ku guddoonsiinayay mas'uuliyiinta u sareysa ee hay'adda ADRA oo ka mid ah hay'adaha wada shaqeynta buuxda la leh wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaanba saraakiisha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota hay'adda caalamiga ee ADRA ugu horreynna wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdilaahi Ibraahim Abane ayaa ku dheeraaday waxqabadka iyo waxyaabaha muuqda ee la taaban karo ee ay sameysay hay'adda ADRA waxqabadka ay Somaliland waxbarashadeeda nagala shaqeysay muddadii halkan ay ku hawlanayd waxaan doonaynaa inaad waxqabadkii ka sii kordhisaan وحاجة تمرقة دورة بيباهيسان Sir Lewis oo ah mas'uulka u sareeya hay'adda ADRA oo shahaadadaasi u gudoomay ayaa isna tilmaamay inay ku dadaalayaan in ay taageerada sii xoojiyaan isla markaasina waxa uu ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee Somaliland ay ugu sameeyeen guud ahaanba wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda Somaliland mas'uulkan oo muddo kooban dalka joogay ayaa waxa kale oo mahadnaq ballaaran u jeediyay guud ahaanba cid kastoo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa waxaanu aad u tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinkiisa Somaliland